ogahay laakiin dhulbahanta waan u martiyey daahirow dhulbahanta waan u martiyey waliba anigoo cidna ila socon min bilow ilaa dhammaad deegaan walboo tagayna dee waa soo arkayo markhaati ma doonto waaye dhulbahanta xun oo maanta aan dhihi karo alla ilahe khasaaraad kala kulantay horta ma arag midda labaad daahirow miyaynan kuu muuqan qofka Soomaaliga ee aniga adiga aan qabiil ahaan naga soo jeedo markuu Hargeysa tago bahdilku la kulmo miyaysan kuu muuqan sida loo sharfay wiilashii dhalinyarada ee labadeenaba aan ku abtirsano sida loo qadariyay miyaysan kuu muuqan Axmed Macalin Fiqi oo kursiga looga kacayo Cabdullaahi Balwaan oo kursiga looga kacayo miyaysan kuu muuqan kuwa bahdilka iyo xariga oo gabar ka xishoo waayay oo aan ognahay gabar aan qaraabanahay marna dhulka iyadoo maraysa soo xiray miyaysan kuu muuqan inta dhibaato ah ee maanta dhalinyaro ahaan iyo dadnimo ahaan iyo hawiye ahaan iyo argagixis ahaanba intaasi ma waxaad ka dooranaysaa dhulbahantaas iyo wixii lamida miyaynan habboonayn daahiro inaan runta isku sheego okay waa macsan tahay waxaa arrinta ka jawaabaysa kuu muuqan in taariikhda Soomaaliya aysan dhicin weligeed qof isaaqa oo qof hawiya dilay iyo qof hawiya oo qof isaaqa dilay miisa ku muuqan taariikhda Axmed Dheere markii la isaaq duqay inuu diyaar Djibouti ka dejiyo soo abgaalo oo hiraab ah oo hawiya ah miisa ku muuqan taariikhda jaan maxaa faarax ay khudbadu jeediyay isaaqay miisa ku muuqan taariikhda markii Etoobiyaan aan ka qaxnay Muqdisho aan ka qaxnay sida dad aniga aan kamid ahay Hargeysa loogu soo dhaweeyay hoteelada loo dejiyay loo sooriyay madaxweyne xilliga caafimaad Allah sidaa riyaar kaahin oo hoteelka Ambassador iyo Oriental laba hotel magaalada inta ay dejiyay gaari Xaji Xuseen Darwiish ii gaday lacag sooriye isiyeen Axmed Kayse iyo ninka dhigi jiray Cabdullaahi Cirro magaalada iyo Roodo Nuur Yuusuf iyo Fuad Axmed Nuux iyo magaalada iyo Kayse Axmed Digaale iyo Muuse Faarax Jaambir iyo Maxamed Curad iyo sida la ii soo dhaweeyay ee Hargeysa igu shineed maysan igu ku muuqan maxaa la xiri waay niyo xariga waxa keenaya nidaamka ayaga ay degsadeen qofku xadgudubto oo la doonato calan kale iyo hawl kale dee way xirayaan dabcan way daahiro aniga waxa saa ku dhaliilo oo qodobka yuhuudda ma ahan qodob kale oo ku dhaliilo ma hayo wixii riixna illa riixana وانو عادي الى سريحو انا ان تبرعني نتبرعان الى صاحينو waxaas waa dad wada dhashay laakiin muhiimadu waxa weey weligeed qof isaaqa madina qof hawiye ahna madina qof isaaqa laakiin hantaha hawiye qaar u nikinayaan markii maxamed siyaad barala dagaalay nimanka askar jiifa ee la bixi waayaga ahay difaacay kow maalintan ma jarteen gaalka isku qaban nimanka soo gurmaday walaalkay dhulbahanto maxay dhalineysay ee gaalka inuu la dagaalay ayagay ahaayeen maalintu Cabdullaahi Yusuf joogay ee dadkeen loo garaacay ku BM ku garaacay xamar aan marka ma jarteen ka adkaana ayagu aan la dagaalaynay waxay ahaayeen dhulbahante haddana suuga dhulbahante ee maanta la siiyo lagu taakuleeyo wuxuu imaan doonaa waqooyi gaalka ay soo istaaga maanta xabada dhacdo soo ogaada hadda waxaad leeyihiin waxaa la leeyahay ma jeerteen isaaqa lagu diraa laakiin hawiyo waxaad xabadda ku wadaan ma jeerteen isaaq ma futadiina ku wadin futadiina saas ogaada daahiro ugu dambayn argagixiso 15 sano ay haystaan iyo adiga dhul abgaal iyo dhul habargidir hal abuurihii argagixisada meeshuu ka yimid dhul daarood maaha abaanduulaha ama amiirka waxay ugu yeeraan mar walba argagixisada hogaamiyana dhul daarood kama imaan dhulbahantana ma ahayn cudur argagixiso ka xun oo koofin ka nahay waa noo wada muuqataa marka in anagu aanu noqono ilaalinta midnimada waa nooga muhiimsan tahay dagaalka argagixisada marka guusha aynu gaarnay aadaya baa waa ka culus yahay okay marka ani waxa xabaan ku sheegaya dhulbahanta ani waxa malay adoo shaqay jiray ani saadaacda saaxiib ahayn heesaha maanta la shidaayo ninka sameeyay oo soo saaray oo faafiyaan ah ma fahamta ya dhulbahante anigoo la halgamayay iyagoo isbitaalada la diiyay dhaawacooda u geeyay isbitaalka gaalka ay u geynayay wallaahi billahi taala maanta wiil yar ma jarteen qabsan wiilka ma jarteen kala safiin
adiga ani nin iga qatarsan oo iga galaanka badanna ma jiro qofka dhulbaantaha abaal oo ku haya haba yaraatee ma jirto kaliya waxaad ka shaqaynay maamulkii beri ku dili lahaa maamulkii adiga berita ku dili lahaa oo mataqaanaa cadowgaada ku soo raaci lahaa yaad adiga samaynaysaa rag badan oo dhalinyaro ah mataqaanaa rag badan oo ilaahay kuma samadide tiktoker hawiye ah iyo gabdho badanna waa ceeboobeen waxay noqdeen pay as you go iyaga oo dhalinyaro ciyaalka xaafadda ah oo la jecel yahay oo milyan laba wato yaa in $300 la siiyey yay istaageen maxaad tirahdeen isaaqi somalilanti niyo qabiil muxuma haddii dhaliishuunu ay tahay xukuumadda cabdiraxmaan cirro in la dhaliilo dee waa taas yuhuuddan iyo dakalisinta waa taan xaqa u leedihiin laakiin sidaa waa ceeboodeen ceebtiinana waxaa ku xigi doonta qoomamo marka xilligiina iyo waqtigiina idin siinayaa aniga waxa socdo oo dhan waxaan u arkaa shimbiriyow heesa waxa maanta la dumaayana 36 sano oo dagaal sokeeya ah oo qabiilna qabiilka adkaan waayey oo dadkeena ay qaxeen oo qaar qaraxyo shaab ku dhinteen oo qaar shabaabnimo loo dilay oo qaar askar ciidan dowlad loo dilay oo qaar qabiil isku laayeen oo qaar badaha lagu shubay oo qaar qurbaha